bulshada ku dhaqan magaalada Cergaabo sida gaadiidleyda ganacsatada siyaasiyiinta dhalinyarada iyo waliba haldoorka gobolka Sanaag ayaa fikirkooda ka dhiibtay doorashadii ka qabsoontay magaalada Cergaabo iyo guud ahaanba Soomaaliland qaar ka mid ah bulshadaasi hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida doorashadii koob iyo soddonkii dhacday kaba siday uga dhacday haddaan ka warramo wax la sheegi karo waxay noqotay doorashadaasi doorasho isku sidkan Afrikaba kama dhicin inama caalamka oo dhan baa waxay u tahay tusaale iyo ku dayasho waxay u dhacday si aan lama filaana Soomaalilandna waxay gaarsiisay heerkii ugu sareeyay amaanta waxa iska leh madaxweynaha doorashadan waxay laba doorasho isku sidkan oo golo deegaan iyo golo baarlamaan hal mar la wada qabtay oo Soomaaliland ku cusbeed runtiina culeyskeeda lahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu arrinkaas u babacdigay dhaqaalihii ugu badnaa ee ku baxayna uu bixiyay runtii uu ka amaanay isaga iyo komishanka qaranka iyo saddexda xisbi qaran iyo shacabweynaha reer Soomaaliland sida hagar la'aanteed uga qayb qaatay sidoo kale wax noqotay doorasho taariikhi ah taariikhda Soomaaliland meel dahab ka gashay doorashadaas oo noqotay tii ugu cadaaladsaneed oo aan wax cilad iyo caqabad iyo cabatintoona aan ka iman doorashada wanaagsaneed ugu quruxda badneed doorashada u qabsoontay waxa amaanta koowaad leh ee komishanka xisbiyada madaxda qaranka iyo xildhibaanada hadaan xildhibaan walba kantaroolin taageerayaashiisi iyo dadku codka weydiisanayay waxay noqon lahayd mid aan qurux badnayn sidoo kale doorashadan waxay doorashada kaga duwan tahay doorashada hore oo ka yar xamaasad badneedo baarlamaan iyo golo deegaan bay ahayd doorashada horena waxay ahayd golo deegaan sidoo kale si ugu yara casriyeedaysanaydo maxay kaga duwan tahay doorashadii hore waxay kaga duwan tahay doorashadii hore waxay ahayd doorasho inta badan ka qabsoontay Jamhuuriyadda Soomaaliland ama xadka ay leedahay dawladda Soomaaliland inteeda badan 90% ka qabsoontay isla markaana u qabsoontay si nabadgelyo ah qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inay dhacday one man one vote oo qof iyo cod oo si xor iyo xalaal ay u dhacday bulshadii waxay doorashooyinka hore kaga duwaneed waxay doorasho isku sidkan oo golihii baarlamaanka iyo golihii deegaanka ba hal mar la wada qabtay taasoo ay adag tahay dalalka qaar ku adag tahay inay qabtaan laakiin Soomaaliland ay ku guuleysatay waxaan uga hambalyeynaa komishanka doorashooyinka qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay sidii habsamada lahayd doorashada u dhacday waxay u qabsantay runtii sidii ugu macquulsanayd ugu munaasabsanayd si nabadgelyo oo inagu dhamaatay waxaan oran karaa waxay doorashooyinka hore Soomaaliland qabatay kaga duwan tahay waxay doorasho laba golo deegaan iyo golo baarlamaan oo isku sidkan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye doorashada xaqa iyo xalaasha u dhacday ee haddii beedmaayo sidii la doonayay noqotay waanu kugu ammaanaynaa adiga iyo wixii xubnaaye ka hooseeyaba waxaanu leenahay madaxweyne dee halkaa ka sii socoto yaan nuqsaan dambe inagaga iman dalka meel wanaagsan baynu joognaa Fayaan Cabdiraxmaan Macalin Sharaf aniga waxay muuqataa doorashadaas horta arrimaha muhiimka ah ee la taaban kara waxa weeye in xusuudu mudan inay si nabadgelyo ku dhacday waxay ahayd laba doorasho oo isku sidkan ama isa saaran ma jirto dalalka Afrika meel ay labadan doorasho kale ay ka dhaceen doorashadan waxa sharafta iyo mudnaanteeda iyo qiimaheeda leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland ahaantii doorashadani waxay ku dhacday si nabadgelyo ah xildhibaan kastana wuxuu ku qancay natiijadiisii hordhac ahayd ee u soo baxday marka doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashadii hore horta waxa doorashadani waxa weeye laba doorasho oo isku sidkan xildhibaanada doorashada ku jirayna waxay ku qanceen natiijooyinkooda hordhac ah haddii aan isku dayo waxay teori ka duwaneed waxay ka duwanato doorashadan waxay doorasho laba xildhibaan oo isku sidkan ومن قولها وكيلة ياي من قولها ديجان كياي وأنا دورشة دوريسة لقبته لما حلوان وسكت سكني أي كل شيء waxay kagu tunti waa doorashada kaliya horta markeeda horeba laba doorasho oo isa saaran laba gole oo isa saaran waana kale waxay kagu waa doorashadii kaliya ee xukuumadda Soomaaliland gaar u ah oo aan cid kale ka gacan siin